kan waa wiil loo yaqaan Yuki wuxuu ahaa nin dilaa ah oo dambiilaha dhanka samada oo wax la joogay boqortooyo ku taala dhanka samada laakiin boqortooyada ka soo adkaatay waxaan u soo tuurtaa tibada laakiin wiilka Yuki waxa ay heshay gabadhaas markay ku soo biirto noloshiisa wiilkaasna waxay u bedeshaa dhankay waxayna galaan safarkaas oo ah safar ay ka buuxaan geesinimo dulqaad samir qosol iyo murugo haddaba hor dhacda idin magalay asxaabay ee fil muuqaalka like saara wa tacaalo bina fi hadhihi alqissa wiilkan Yuki loo yaqaan wuxuu ahaa markii hore nin saaxir awood badan oo dadka ka wada dambeeyaan ka baqaan laakiin maalmaha kamid waxay isku dhacaan ninkii ugu sareeyay boqortooyada Salinay ninkaasna wuxuu bilaabay inuu isticmaalo awoodiisa wuxuuna ka bedelay xasuustiisii oo wuxuu ka dhigay qof bilaa xasuusa wuxuuna ilaawaa magaciisii awoodiisa uu isticmaali lahaa iyo waxa uu sameyn lahaa markii intaas ku dhacdo wiilkaas noqdo qof bilaa xasuusa ayaa wuxuu ku soo laabtaa caalamkii adduunyada ahayd ba loo soo tuuraa kadib markuu ku soo dhaco waxaan arkaynaa gabadhaasna wax ka socota meel dooga aad u qurxoon nolosheeduna nolol degan wax mashaakil problem ma haystaan gabadheeda iska lugeynaysa ayaa hal mar wax sheeda ka aragtay jirta ama jid meel yaala kadib gabadha markay soo dhawaato saa waxay aragtaaba jidkii wiilkii Yuki loo yaqaanay oo laba ay isku dayeen jiidaan gabadha waxay isku dayeen eeyada ka celiso kadib markay eeyada ka celisay wiilkii waxay bilaabeen soo kiciso maasay ku tiraahdaa baad magaca maasay wuxuu ku yiraahdaa magacayga ma xasuusto cidaan ahayna ma garanayo wiilkiina waxa uu fiirfiiriyay hareeraha si ilmo ermika soo dhasho adduunyada ku cusub karasa gabadhu waxay ogaatay in wiilkan lagu sameeyay sixir oo san waxba xasuusin karin awoodiisna laga qaatay karasa gabadhu waxay ku tiraahdaa kaliya mushkilad kuma haysato waxa ku haysata hal dhib oo kaliya dhibkaas waa la xalin karaa haddii aad istajisid oo waxyaabihii kugu dhacay aad si degan soo xasuustid haddana dhibta kaliya ku haysatay waa in xasuus la'aan noqotay ama xasuustii ka tagtay markaas wiilku wuxuu ku yiraahdaa xasuustaad ka hadlis maxay tahay xagee anigu ayaan joogaa masaga waxay ku tiraahdaa aniga ku caawin doona ka walwalin kadib markay gabadhii dajisay wiilkii ay wax walba sheegto ay waxa soo laabtay labadii ay gabadhii waxay ku tiraahdaa sarakac oo iska xili ayda waxa laga yaabaa in awooddaadii aad u isticmaali lahayd ilowday laakiin hadda isku day inaad la dagaalantid wiilkii wuxuu bilaabay soo sarakaco oo eedii la dagaalanayso dhaho laakiin labadii ay baa ka awood bata waxayna bilaabeen jiitaan maasa gabadhu waxay bilaabeen soo daba cararto oo wiilkii raali geliso maadaama ay ku kalifteen waxa uu sameeyo markaas wiilkii wuxuu ku yiraahdaa no problem taas dhimale markaas gabadhu waxay bilowday inay ku tiraahdo haddana waxaan ku geynay magaalo ina mari kadib waxay geysay magaaladaas oo magaalo aad u weyn korka marka laga eego waxay egtay najma ama xidig maasax gabadhu waxay ku tiraahdaa magaaladan waxa ku wada nool dadkii jimanka oo jimankuna wax dadka waxaan u dhiman dadkuna iskaga wada nool yihiin saaxirin badan ba bari jiray laakiin hadda saaxirintaasi ma jiraan oo nolol dagay dadka iskaga nool yihiin dadkuna iska faraxsan yihiin laakiin asxaabay nabadda iyo baashaalka dadku haystaan ma sii waarib doonto markuu wiilkan Yuki uu imid magaalada haddaba maxaa dhacay Yukina muxuu sameeyaa qisada animiga ka ogaan doontid ee ila soo muuqaalka like saar haddaba wiilkii Yuki soo iska dhex marmaray suuqii ayaa wuxuu arkaa madaca meel wax lagu iibinayo oo madaca cuntooyinka lagu iibiyo kadibna meeshuu soo istaagay gabadhan waxay bilowday ka soo carruurta ku soo maxarabta maasoo gara waxaan rabaa in wax cuno kadibna gabadhu waxay soo saartaa shilin yar kadibna shilinka wuxuu bilaabay inuu afka ku qabto yaani uu qaniino maasoo gabadhu waxay ku tiraahdaa waxan waa shilin waana lacag waxan la isticmaalana way maasoo gara lacagtu waa maxay maasoo ku tiraahdaa adiga ayaa fahmi doona waxan waa lacag faraha ka daa afka gelinay kadibna wiilku wuxuu bilaabay inuu faraha ka daayo oo afka uusan gelin oo u isticmaalo say gabadhu u isticmaalisoo kale gabadhiina waxaa dhacday inay ku tiraahdo haddayna mari habeen baa la gaaray waxaan tegaynaa hotel yar hotelkaas lacag fara badan iga qaadi maayo labadeenoo kaliya seexanayna hotelka kadibna waxay yimaadaan hotelka ninka hotelka ala wuxuu ku yiraahdaa haddana haysan lacag nigu filan caawa meel kale seexda boosadii ma banaaniga kadibna wiilku wuxuu ku yiraahdaa maxaa hotel waxaas isku kadeedaysaa kaalaha waxaan ka samaysanayna duurka teendadaas ayaan iska seexanaynaa gabadhu ku waafaqdaa teendada waxay bilaabeen iska seexdaan teendada markay seexdeen ayaa waxa soo labadii ay wiilkiina bilaabeen jiitaan gabadhu waxay bilaabeen inay soo ka ereedo ama ay ka soo kaxayso labadii ay subaxdiina markii la gaaro waxay imdaan meel saldhiga booliska camal oo kala yaani boolis qadiimeedkii waxa ka hadlayna booliskan hadda ma ahan qofku wuu imanayaa kadibna wuxuu iska duwaan gelinayaa inuu noqonayo geesi u halgamay wadanka yaani si askari camal ku noqonaya kuwaasna waxa loo yaqaan muqaamiriin waa kuwana la dagaalamay wuxuushta waaweyn soo weeraraya magaalada waxayna soo bandhigaa waxay rabaan oo ah yaani inay noqdaan askar oo wadanka ay rabaan inay difaacaan gabadhiina way aqbashaa waxna ku tiraahdaa soo dhawaada dhanka waxaan soo gabadhaas wax loo yaqaan Kaarin waa gabadh miskiin oo wadada inay iska maleysaysa si kiisa waxay u maqashaa laba nin oo hadlaya oo la yaani nacaawiya waxna soo weeraray wuxuush keen gabadh wax isku dayday inay caawis tiraahdo laakiin inta wuxuush ka cilinaysay ay rag waxay bilaabeen safety kala baxsadaan kadibna ay duurka ay galaan kadibna gabadh wax isku dayday in duur ka soo daba gasho waxay ku tiraahdaa fadlan safety wax kale maniga ma doonay ragina wax isku garab qariyaan geed hoostii waxna ku yiraahdaan kaana soo hel laakiin gabadh waxay bilowday inay walwasho meeshana
iskaga tagto kadib labadii waxay bilaabeen seeft ku faanfaanay farfarxaan laakiin dusha sare waxay imatay gabadhii waxay ku tiraahdaa waan qabtay iidiina xum kadib kale waxay imanaya wiilkii Yuki iyo gabadhii ba imanaysa meeshii kadib waxay bilaabeen keenta iska dhex galgalaan waxa lagu yidhi taniin ama yacni dragon ayaa meesha jooga dragon kaas ayaa rabaa inay soo dishin kadib gabadhu waxay aragtaa noolaha yar bay rabtay isku dayday inay qabato oo la ciyaarto laakiin noolihii yaraa wuxuu ku yiraahdaa faraha iga qaad meeshan waxa jira tanaaniin waaweyn iyo wuxuush waaweyn dhanka waxaan seeyay islaantaas waa islaan saaxirada waxayna shirqool u dhigaysaa dadkan kale kadib gabadha iyo labadii wiil waxay la kulmaan gabadha loo yaqaan Karin marka ay isbartaan ayaa ganaagti saaxirada ay meesha isku qarinaysa islaanta ahayd waxay ku soo weerartaa bahalo yacni af English wax loo yaqaan mushrooms baa loo yaqaan mushrooms kaas oo waaweyn ay ku soo weerartaa lacanada kadib gabadha Karin waxay bilowday inay isticmaasho maharooyin skills la yaab leh waxayna la dagaalantaa bahashi wiilkan wuxuu iska kiciyay awoodiisa isticmaali jiray isna wuxuu bilaabay inuu la dagaalamo bahaladii dhanka xitaa gabadhiina wuxuu isticmaashay awoodeedii laakiin gabadha Yuki mid kamid ah ay qabtaa waxaana uu bilaabay inuu xoorto ku qabto laakiin wiilkii Yuki baa ka soo gaara wuxuu bilaabay inuu fargeeto weyn oo haystay inuu ku jiido yacni ku dilo bahalkii dhanka kale gabadhii Karin waxay isticmaalaysaa awoodeedii oo bahalada ayana la dagaalantaa iyadoo iska wada kaxisay iftiin oo isticmaalaysa awood qayb kamid ah ilahayadu kadib waxaa soo carartay gabadha kale waxayna bilowday inay caawiso Karin kadib iyagoo isku wada jir ah ay kaga guuleystaan bahalada mushrooms loo yaqaan waaweynaa kadib bahasha yar naqneed noolaha ahayd ayaa waxay bilowday inay soo qabato oo qaniin istiraahdo laakiin gabadha ba qabato waxay bilowday afka geliso cunto gabadha ku qayso waxay ku tiraa waxan waa noole yar maxaa cunaysaa kadib waxay bilowday soo tufto gabadha Karin way daashay waxay ku tahay wiilka Yuki qaad kadib galabtu waxay bilowday soo qaadan oo magaalada iska soo iibnay iyagoo iska faraxsan habeenkii gabadha Karin ayaa waxay heshaa qol oo seexisaa subaxdii markii la gaaray gabadhii ka hor waxay sii saataa daaqad waxayna agtaa wiilka Yuki tadriiba sameynaya oo jimicsanaya oo yacni tababar qaadanaya wayna ku faraxdaa si kaliya waxa dhacay madax inuu kaga dhaco bahal kadib gabadhu ay ka naxdaa kadib waxay bilaabeen qoreeyaan si wada jira oo iska farfarxaan oo yacni ka sheekaystaan wixii shalay dhacay kadib ninkii meesha imdu wuxuu ku yiraahdaa cunto kalmiya u baahan tihiin maasa gabadhu wuxuu tiraahdaa cunto kalmu baahan taas aan ugu filan maasa gabadhu waxay weydiisaa tanaaniinta la sheegay ay ku nool yihiin maasa ninkii wuxuu ku yiraahdaa tanaaniinta waxay ku nool yihiin kaynta waana tanaaniin aad u awood badan qofkii ka guuleystana wuxuu helayaa biladaas loo noqon doono yacni u dhawaan doono inuu boqor ka noqdo magaalada kadib wiilku wuxuu ku yiraahdaa anaa isku day inaan ka guuleysto kadib waxay bilaabeen inay farxaan waxa ay maqleen oo ninkii ay sii weydiiyeen waxyaabo ku saabsan ninkaas ninkiina wuxuu bilaabay inuu si fiican ugu sharaxo dhanka kale harkina gabadha Karin maadaama iyadu qolkeeda u hubeysay labadii qof waxay seexatay xerada fardaha oo yacni iska seexato si ay martidan sharafta badan ay u casuumto kadibna fardii mid kamid ah ku toosiya oo leefleefa dhanka kale harkina labadii nin say ka soo baxsan gabadha ka soo baxsadaan waxayna haystaan seefteedu wili isqarinayaan kadibna gabadhu waxay tiraahdaa waxaan rabaa inaan soo qaato seefteedii oo ka aan goosto labadii nin waxayna bilaabeen suuqa ay keento dad fara badan waxayna ku tiraahdaa waxaan siinaa quraac bilaasha qofkii raba iska soo dawaan geliyo laakiin wax walba oo bilaasha gadaal wuxuu ka leeyahay wax kale oo yacni fakh ama khiyaanay gabadhan ka wadaa waxayna tiraahdaa cuntadan waxaan ugu talagalay marka koobaad waxa cunaya waa laba wiil midna xoogaa yar buuran yahay midna waa caato markay labadii maqlaan waxay yiraahdaan labadii way malaha waxana laga hadlayo aan soo cararno oo iman meeshan kadib markay imaadaan gabadhii Karin ayaa la hadasha waxayna ku tiraahdaa waa iskeentay saaxiibayaal ee siya seefteeda dhaqsa ragina markay arkaan gabadhii waxay bilaabeen isku naxaan cararaan laakiin gabadhu waxay isku dayday inay ka soo daba cararto oo yacni ka soo qaato seeftii dhanka kale harkina gabadhaas waxay isku qadanaysaa derbi waana saaxirad halis ah waxayna aragtaa labadii qof iyo gabadhii Karin oo iska sheekaysanay kadib waxay isticmaashaa waxshigaasna wuxuu bilaabay soo weerar gabadhii Karin laakiin gabadhii Karin waxay isticmaashaa awoodeeda waxayna bilowday meel fog ku tuurtay dibaalkii waxayna aragtaa naagti saaxirada ahayd oo dhulka ku dhacday maasa gabadhu waxay bilowday ku tiraahdo adiga ka dambeeyana soo weertay soo maaha laakiin hadda waa caafimaad qabtaa soo maaha si fiican ayaan ku soo dhaweynaynaa anagu dad xun ma nihiin hana naga cabsan waxba kuuma dhimayne gabadhu way yaabtay waxay ku tiraahdaa maxaad ka hadlaysiin anigu meesha ayaan soo joogay adigu ma wax shay igu soo tuure maasa gabadhu waxay ku tiraahdaa saaxiib waan ku fahansanahay ee isdeji waxa kugu samayn mayno gabadhu waxay ku tiraahdaa anu ma rabo inaan saaxiib la noqdo iga qaada farahayga kadib waxay bilowday inay gabadha ay hanjabto oo ay ku tiraahdaa meel mar dambe iga soo daba dhaqaaqina inay iskaga tagto kadib waxay bilowday inay xanaaqsan imato oo tiraahdo dadkan xumeesaas maxay sida fiican igula dhaqmayaan marka hore mushrooms ku soo diray laakiin haddana waxay rabaan inay si fiican igula dhaqmaan dadkan waa dad wanaagsan ana iska dhigay malaha dad wanaagsan waa dad xun malaha waxayna bilowday inay fikirto geed iska fuusho oo yacni ay ka fikirto dadka cidda ay yihiin iyo awoodaha ay isticmaalayaan
iyadoo saas ka fikiraysa ayaa waxay aragtaa labadii nin ee gabadha seefta ka soo xaday waxayna tiraahdaa labadii nin ee gabadha seefta ka soo xayso ma ahan kadib waxay bilowdeen u yeerto raggina waxay bilaabeen istaagaan oo yiraahdaan yaa noo yeeraya waxayna isticmaashaa tiniinkaasna markay arkaan rag way bilaabeen inay cabsoodaan naxaan tiniinkan waxa ku soo dirtay gabadhii kadibna gabadhii Kaarin waxay aragtaa seefteedii lunsan waxa xagee seefteedii martay ay leedahay gabadhii way imato waxayna ku tiraahdaa raggiiba ka haysa seeftaada weli waxaan ku diray tiniinkayga ayaana rabay inuu kaaga argudo waxay kugu sameeyeen raggaasi gabadhuna ay faraxay ku tiraahdaa ii sheeg raggaasi xagee joogaan laakiin waxay ku tahay shardi waa ku xiran shardigaas oo ah inaana mar dambe si fiican igula dhaqmin gabadhu waxay ku tiraahdaa way xaq ugula ma dhaqmayo ee ii sheeg ragga xagee ay joogaan tiniinkan ma rabo inaan ka badbaadiyo aniga ayaa raba inaan dilo kadib aan tiniinka marka aan dilo ayagana waan dili doonaa seefta ayaana ka qaadan doonaa haddaba asxaabi animeyga waxa ka buuxa fani iyo qosol laakiin inta ugu murugta badan leh wax xamaasada badan leh asxaabi way dambaysaa waxba aan ka arag animeyga ma rabo inaan xamaasad ugu sii dilo asxaabi xalqada ku xigtiis la bariitadan baan soo dhigi doonaa Ilaahay suurta galiyo maca salaama wa ashuufukum fi xalqa jaaye